oo nin caan ah oo la yaqaan muxuu Muqdisho xalfadiisa ugu dhiga waaye baabajay Muqdisho xalfadiisa maxaa ugu dhiga waaye maxay tahay labadan biri in la iskugu tago Soomaaliland oo xalfad loogu dhigayo oo ilmaha yaryarka iyo gabdhaha yaryarka iyo bulshada Soomaaliland maxay tahay oo la iskugu keenayo hool aniga arintaas waan ka soo jeedaa arintaas ma ogali Soomaaliland waxa waaye cadow bay qabtaa Soomaaliland dad baa cadow ku ah Soomaaliland geesaha baa laga jiraa Soomaaliland waa dawlad ishabeysatay waa dawlad isbawaaqaysatay waa dad wadankooda dhistay waa dad wadankooda amaankooda sugay oo nabadooda sugay oo maasha Allah Ilaahay bay waaqeeyo waaya lasaaniga waxaan fahmi waayay waxa baabajay ugu jeeday inuu iskugu keeno oo ilmaha iyo maxaa lahaayeen bulshada Soomaaliland inuu u ijaaro hool weyn badan oo iskugu keena aniga waan fahmi waayay labadan biri waxa la keenay dadkii ee caanka ahaa oo xamar joogi inay Soomaaliland u kala oydaano inaan Soomaaliland oo kala oydaano Soomaaliland baa xalfad lagu sameeyay aniga macnaheedu waan fahmi waayay marka aniga waxaan idhi lahayd Soomaaliland oo xalfadyaasha meelaha lagu dhigaa wax baan ku duugan xalfadda Soomaaliland iskugu keenayo kuligooda maxaa lahaayeen oo hool iskugu keenayo ee bulshada Soomaaliland iyo xalfadda hool iskugu keenayo laga dhigayo oo intaas oo lacag lagu bixinayo aniga waan fahmi waayay wallahi waan fahmi waayay Soomaaliland wadaada baan jooga dad sharaf lahaan jooga wadaada bay qabaan dhaqankay xeediyaan sharafta bulshada xeediyaan wanaaga bulshada xeediyaan Soomaaliland mar walba wanaagay ka taliyaan waa wadanka waa Soomaaliland ee waxa xukuma wadaadadooda baa xukuma Soomaaliland sheekhiyaashooda baa xukuma sheekhiyaasha Soomaaliland way diidan yihiin fusuqa way ka soo horjeedaan sheekhiyaasha Soomaaliland way ka soo jeedaan hablaha qaaban madaxa soo baneystay ama meesa muqulka lagu sameeya wadaadada Soomaaliland way ka soo horjeedaan because waa dad wadaada ah dhaqankooda iyo diintooda iyo sharaftooda ku dhaqmo weeye magaratay sababta ina xamal looga soo baxay Soomaaliland loo yimaadi hool weyn loo ijaari ummadda Soomaaliland isku keenay aniga waan fahmi waayay my baabajeeyo adiga xalfadda intaasoo lacag ku bixisay oo intaasoo ummadda Soomaaliland iskugu keentay ilmayaya iskuule ah oo maanta waxaa laga yaabaa ilmaha Soomaaliland iskuul magii soo dhameeyaan oo waxbarasho soo dhameeyaan way inay noqtaa commandos waa inaa laga dhiga wiilka Soomaaliland ah Michael 15 sano gaayo oo qoyaanka soo bato dugsiga soo dhameeya wiilasha Soomaaliland commandos baa laga dhigayaa se dalkooda u daafacaan se qoyaha u qaataan se maxaa lahaayeen dalkooda u daafacaan oo meel walba u istaaga maxaa lahaayeen xaduudooda se u istaagaan oo u ilaastaan ilmaha Soomaaliland 15 sano magowga qoyaankiisa iyo waxbarashadiisa soo dhameeya commandos baa laga dhigaa ciyaalka Soomaaliland xaduuda bay istaagsanaa xaduudaas bay ilaalinayeen adigana inaan ka soo baxday Muqdisho baabajeeyo Muqdisho inaan ka soo baxday ciyaalka yaya ilmaha yaya ila hotel weyn u ijaatid xalfad u dhigaysa aniga waan fahmi waaye Soomaaliland amaankeeda la ilaaliyo aniga hadalkan waan fahmi waaye labada wiilka la dhaha muxsul maalaha ma ogi iyo Saldaan wiilka la dhaha Saldaan iyo wiilka lanta muxsul la dhaha galaal bay ka soo baxeen waan fahmi waayay dadka labadan kalenta muxsul iyo Saldaan galaal bay ka soo baxeen waan fahmi waayay Soomaaliland waa wadan dhisan weeyo waa wadan dhisan indhaha la kala fooy Muuse Bixi madaxweyne Muuse Bixi labadan bilaabsada shabo ku jira
muusabix labada biidoosha iyo waxaas baa jiro rabshada boo ku jira waxba ma xasuusta intaas yaani laga faa'iidaysanin madaxweynaha intaa doorashada ku jiro intaa rabshada ku jiro ummadda yaa hool iskugu keeni hool ma laiskugu keeni kara because madaxweyne muusabixi doorasho boo ku jira wuxuu ku jira maxaa lahaayeen rabsho boo ku jira intoo rabshada ku jira wadanka ma dhacaysa inaa laiskugu keena ummadda hool loo ishaaro xalfad laga dhiga aniga arrintaas qalad baan u fahmaa Somaliland hore u socdo Somaliland indhaha kala fooda indhaha baa isku haysin waa jijiftiine doorashada iyo waxaan tiyaani laga faa'iideysani doorashada intaan ku jirtin ha isku buuqsantay xalfad baan ila dhigaa waa yeelaysin wiilashaan yayka oo Somaliland oo baayaha bulshada ku jiro aloo wacdis bay u baahan yihiin kuwa dadka soo dhaweey waa ilmaha yayka iyo gabdhaha yayka baayaha bulshada ku jiro Somaliland wiilashaan yayka iyo gabdhaha yayka dadka soo dhaweynaya deeado istaagaya dhahaya maya wacdis ala si wacdis bay u baahan yihiin ciyaalka aloo wacdiyo wacdis bay u baahan yihiin wadanka woo tagay diganaala da hol dhaxis baats boo ku diganaay ma baahante ما خشين هالو يس مايكا حلفت بالو ديغنا سومالي لان بابتي 1 مليون حفلت سو ديغنايا علمي انك عشت ميك ما في سومالي لان علمي لان عيب ومجوكت عدا شرفت سومالي لان وهي قال يعني عدس ولا لي عيب كذا وهي قال ما عدس ما قال انا ما فهمت وان جعلها إلهاس يعني إلهاس كم دعني ما فهمت Somaliland فهمت كسي يعني ما يكحسبت بامس يا حلفت بامس بابتي كلنا هاي حلفت دي علمي كم دقيقة آخرين ليلة قبسة ليلة ما يزيد ليلة وعلى قبا ليلة ما قبا أنا علمي إذا ما فهمت حلفدي سالو سميناي ميسي وحن كدعي بوليس باي ماري حلفدي ددك waa la kala raacday ma fahant marka waxa la dhahay cashar xumadii iyo abdaale oo isku keeno hool oo ciyaarka iyaga loo baabiyo loo fadayanaaya Somaliland way diiday baabajay waxa la dhahay xalfada meeshan ku dhigaysin ala kala socdo ya video meesha laga duubay ya wax laga duubin laga tagaa la dhahay marka waxa waa asaas weeye maxaa loo aaday Somaliland waxa loo aaday oo xalfada loogu dhigaayo maxay tahay يعني وابيابي هيا قارتو السلامة غير هنا جينا إن شاء الله هاي walaalkay adresskaaga iyo taleefankaaga cilmi u reeb furtuun markaan keenaan ku soo raadinayna keenaa adresskaaga iyo taleefanka MS web taleefanka looqo ku reeb adiga sheekada way dhamaatay okay in sha Allah hay noo wad sheekada baabajey noo wad cilmiyo marka baabajey xalfadii waa la boyboy Somaliland ay way diiday meel laga dhiga fusuq waxay dhaheen fusuq dooni mayna ilmaheena la fasahayo dooni mayna wax xumaan Soomaaliya ninka soo qaadi lahaa fartuun balbalaar ya marka Somaliland ay way diideen fusuq wadankeena fusuq uma ogolinay dhaheen ilmaheeda inaan laga fasahayo uma ogolen xalfadiyada ina meelaha lagu dhiga ama meesha dhibaato laga sameeya ama muslimku loogu soo dhax dhunta wax dhibaato ka dhaca inta ba way diideen booliiska Somaliland xalfad saas u weyn oo ummadda la iskugu keenay wax walbaan ka imaakaya dhibaato bal waa ka imaakaya marka baabajey waa laga diiday xalfadii intay u dhineed waa laga waxeeyay live ku noolaaw soo qabo cilmiyo live ku noolaaw soo qabo
adoo raaliya dadkiiba uma jeeda aniga ama dad إنك سومالي أسوأ وجه مستقبل سومالي معارض سنين. aniga waxaan ka yaabay waxaan ka yaabay life ku taas ku noolaa noolaa gas